si aad u hesho xog walba oo qosayso aflaanta cusub iyo hordhacooda fadlan rukuma channelkeena subscribe to our channel waxa maanta la qorsheynaya in laga daawado daafaha caalamka filimka weyn ee Vikram Vedha waana sheekanin booliis oo isku dayay inuu ugaarsado dambiile aad looga baqayo Heritic ayaa qaadan doona doorka Vedha waana burcad ku sugan magaalada Lucknow wuxuuna geystay ilaa 16 dil ah kuwaas oo noqday mid aad looga xumaado kalifayna in booliiska ay sameystaan ciidan u gaar ah ama staff si ay u soo afjaraan isaga iyo burcadda ku hadafka waxa ciidankaas madax u ah Vikram doorkaas halaasigana waxa matali doona Saif Ali Khan inta uu xaaladaas wajahayo ayuu helayaa Saif tilmaam ah in xubnaha gaangistarada iyo ninka horkacayaba ee Vedha ay ku dhuumalaysanayaan dhisme cidla ah oo ku yaalo meel magaalada ka fog Vikram saaxiibkiis u dhow oo la yiraahdo Abbas Satyadip Mishra iyo kuwa kale oo ka tirsan staffka ayaa gaaray goobta iyaga oo damacsan in ay nolol iyo geeri sida ay naqataba in raggan ay soo afjaraan gacantana ay ku soo dhigaan sida la qorsheeyay ciidanka iyo howlwadeenadii kale waxay meesha ka saareen qof kasta oo meesha joogtay inkastoo mid kamid ah burcadda uu diyaar u ahaa in uu isliibo markaas waana Muni Amjid Singh wuxuuna xitaa ogolaa in uu bixiyo lacag si naftiisa loo badbaadsho si kastaba ha ahaatee Vikram oo ah nin daacad ah ayaa arrintaasi ka diiday wuuna dilay ninkii isagoo iska wareysan goobta faldibeedka ka dhacay markii ay baarin booliska waxa ay ogaadeen in ninkii ay dileen uusan ahayn kii saxda ah misna uusan haysan wax hub ah oo loo maleyn karo inuu faldibeed ka gala dalkan Saif markuu tan ogaaday wuxuu ka cabsaday in ay dhibaato u keento arrintan wuxuuna saaxiibkiis ka codsaday una sheegay in ninkan gacantiisa ay hub ku dhajiyaan si loo bedelo arrinta loona ekaysiyo inuu risaas ku soo furay booliska kadibna booliska iyagoo isbadbaadinayaan ay risaas ku jawaabeen meesha ugaarsiga ka socday Vedha ma uusan joogin isaga balse booliska markaan waxa ay heleen xog ku saabsan halka isaga laga heli karo markii ay isku diyaariyeen inay ka baxaan saldhigga booliska si ay u soo dilaan Vedha waxay la kulmeen naxdintii noloshooda sababtoo ah ninkii ay raadinayeen ayaa lugihiisa ugu yimid si qabow ayuu saldhigga u soo galay wuuna isdhiibay dhammaan waa ay fajiceen xubnihii ilaalada ka ahaa saldhigga waxayna bilaabeen in mid su'aal u weydiiyaan balse isaga afkiisa weli uma soo kala furin ilaa uu ka yimid taliyahooda ugu dambeyntii markii uu Vikram fadhiistay isaga ka soo horjeedkiisa Vedha ayaa ka codsaday in uu maqlo sheekadiisa wuxuu dib ugu celiyay 13 jirkiisii markii uu u shaqayn jiray dambiilihii Covid Banday iyo sida uu u helay kalsoonidiisa wuxuu sidoo kale u sheegayaa walaalkiis Rohit Saraf saaxiibadiisii carruurnimada Jandara iyo wax noloshiisa sidan ka dhigay dilka ugu horeeyay uu geystay iyo waxa ku kalifay iyo xusuuso badan oo naftiisa ka guuxayo taas oo ka dhigtay noloshiisa mid adag balse nasiib darro inta uusan dhameynin sheekada qusaysa aragtidiisa Vedha waxa goobta soo gaarayso Vikram xaaskiisa taas oo damaanad ku sii deynayso ninkan burcadka mahan beriya oo ah askari adag xaaskiisa marna ah qareenad u doodaysa Vedha ayada ninkeeda wax kala qabsado iyo waxa dhici doona marka xiga waxa kaliya lagu ogaan karaa qaybaha kale ee sheekadan markii si toos ah loo daawado